maanta oo ay bishu tahay 5tii bishii 12aad 2020 waxaynu isugu nimi furitaanka kulliyadda ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay maanta u bilaaban doonto 46 sarkaal oo dhawaan ka soo qalin jabiyay kulliyadda tababarka ee Cabdilaahi Askar. taliye halkan waxaa kugu diyaara oo maanta u diyaara inaad furtid kulliyadii ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku xiroonayaan 46 sarkaal layli sarkaal sidii qorshuhu ahaa oo maanta ay tahay maalintii koowaad ee kulliyadda ku xiroonayeen oo kuwan hortaada fadhiya kulliyadda saraakiishu waa kulliyadii u horeysay ay yeelato jamhuuriyaddu difcaddanina waxay noqotay difcaddii u horeysay ee nasiibka u yeelatay inay noqoto difcaddii lagu bilaabay ee kulliyadda saraakiisha runtii waxaan rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwa nasiib u yeeshay inay noqdaan hoggaankii difcadaha ka dambeeya ay ku dayan lahaayeen oo role moralkii kulliyadda saraakiisha inay saraakiishani noqon doonto ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala annagu kulliyad ahaan waanu diyaarsannahay inaanu qaabilno saraakiisha kulliyaddu waxay ka kooban tahay 3 department qayb waxbarashada ah oo maxaan ku radaa waaxda waxbarashada oo xujaale iyo yaasiin qayb adminka ah oo cabdiqani uu taliye ka yahay maamulka iyo qaybta discipliinka ama arasayka xerada oo iyadana kaashaanle soo socda insha Allah taala uu madax ka yahay qayb walba hawsheedu waxay u diyaar garowday marka hore wada ku soo dhaweeyna kulliyadda marka xigtana waxa soo barateen waxbarashadii military ama culimtii militariga soo ugu soo baratay kulliyadaasi imika waxa soo gasheen kulliyaddan ciidanka booliska waxa la idinka baahan yahay inaad si muugla u barataan shaqada ciidanka booliska oo ah mid farsamo oo loo baahan yahay inaad si aad iyo aad u barataan haddii noqoto xeerka ciqaabta haddii noqoto xeerka ciqaabta haddii noqoto shaqada ciidanka booliska maadaama atiin heerka maanta heer taliye saldhig darajada joogtaan horta kooriskiinu taliye saldhig buu ku salaysnaanaya taliye qayb iyo hogaaminteedana fikrad baa la idinka siinaya waxaan la akhriyay iminka shuruucda ama xeerar ciqaabeed ha noqdaan ama xeerar maamul ha noqdaan ama farsamada baarista ha noqdaan ama hogaamin ha noqdaan waxay ku salaysnaanayaan heer taliye saldhig waayo xilkaa waa qabanaysaan marka halkan ka baxdaan ninka taliye saldhig marka haddaanu hogaamin dambi baarayaasha iyo saraakiisha kale ka hooseysa oo aanu shaqadii garanayn dee hogaamin karin waxbaa ka dhiman baa la odhanaya xigmadda u weyni waa taa markaa waxaan idinku boorinayaa intaa kulliyadda ku jirtaan laba mawduuc weeye waxaa qaadanaysaan mid waa waxbarashada kalaaska ee tiyoriga ee laga warramay tan labaad waa ta discipliinka waa maqlayseen halkaa laga bixi maayuu yidhi taliyaha kulliyaddu waa dhab waa laydin eegayaa fayl baa jiraya fayl subax baa jiraya mid duhur baa jiraya mid galabeed baa jiraya mid habeenkii marka la seexanayaa jiraya nin waliba rikoodh iyo fayl buu halkaa ku yeelanaya waxaa laydin bilaabayaa waxbarashadii waxaynu ognahay jaamiciin baa wada tihiin haddaad istidhaahdaan jaamici baa ta waxbaa taqaanaa riis nubsad noqonaysaa inaydaan waxba aqoonin ku xisaabtamo maanta arif laydin bilaabayo waana laydin bilaabaya shaqadii bileeska laydin bilaabaya tusaale yar baan idin siinayaa aniga hoggaanka tababarka hoggaanka hawlaha madheero meel la yidhaahdo carruurta bilees wax lagu bari jiray baanu ka soo baxnay 10 jir ka noo weyne 12 jir buu ku galay shaqo bilees waa naloo bilaabay ilaa maalinta aanu intaa laakiin ilaa maanta waa wadnaa weli maanta aqoontii bileeska inaanu sii barano waanu u baahannay macnaha ma laha meel ay ku dhammaato waayo aragnibaa jirta maalinba waxbaa kula kulmaaya kiisaan weligii hore u dhicin baa kula kulmaaya oo dhagu ay ku baxaan aqoon bileesi waxay tahayba waa laydin bilaabaya qaabka bileesku u dhisan yahay hoggaan waliba wuxuu qabto waxaa idin sugaaya waajibaad culus baa idin sugaaya mustaqbalkii bileeska ayaa tihiin ku xisaabtama haddii ilaha yidhaahdo jiilkii u horeeyey ee dhallinyarada ahaa ee saraakiile ee bileeska u soo baxaa tihiin
sidaa ugu xisaabtama waxaa dhacda rag markuu sidaasoo kale yahay mustaqbalka qaar baa intay ka dhacaan marka dambe yidhahda haddii hebelkaa iskuullad baannu ahayn kuwa inaydaan noqona ilaahay ka barya yidhahda ninkaa iskuullad baannu ahayne iyagu ahaado kuwa lagu daydo marka waxaan idinku gowaabinayaa in disabiliinka iyo nidaamka ilaalisaan